السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahayga Soomaaliyeed isu soo noqod wacan oo farxadiisa leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba meeshuu joogo ha ku xifdiyo waxa uu jecel yahay Allah ha ku siiyo dhammaan wadankeenana abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira Ilaahay waxaan bifadlihi wa birahmatihi wa bi'izzatihi u wada weydiinaynaa bulshadeena inuu ka dhex saaro annagana uu na fahansiiyo qaabkii aan uga bixi lahayn dhibaatada soo noqnoqotay ayaan darrada leh markii aad cabsatid markii aad baqdid samee waxyaalaha aad ka baqayso markii aad wajahdid cabsidaada waxaad arki doontaa wixii aad u aragtay cabsida inay kula noqdaan wax caadi ah tani waa sida ugu dhaqsaha badan uguna hubaalsan ee aad kaga takhalusi kartid oogana adkaan kartid cabsida ha ka baqin cabsidaada uma joogaan Allah subhanahu wa ta'ala cabsida kuguma uusan abuurin inay ku cabsi geliyaan waxay kugula joogaan inay ku ogeysiiyaan inay wax qiimo leh ay tahay inay noloshaada aad u dhaqaaqdid oo waxas qiimaha leh in aad samaysid markii aad ka baxdid meesha aad ku hareeraysan tahayna waxa dabiici ah wax walba oo cusub inay cabsi ay jirkaaga ku abuurto cabsidaas oo ah mid aan waxba ku yeelayn iyo inuu Allah kugu abuuray cabsidan kale inay wixii khatar ah ay kaaga digto ayna tahay inaad ka baxsatid oo ka kacdid meesha sidaysan kugu dhicin khatartaasi ha ka cabsanin inaad guul daraysato ee ka cabso inaadan samaynin inaadan isku dayin waxa aad rabtid inaadan isku dayin riyooyinkaaga taas waa inay ku cabsi geliso wax ka baro guul darooyinkaaga oo u gudub caqabada xigta haddii aadan fashilmin haddii aadan guul daraysan ma koraysid oo isbeddel lama imaanaysid ha ka baqin inaad u istaagto waxaad aaminsan tahay waxa kaa dhex guuxaya xitaa haddii ay taasi la macno tahay inaad keligaa u istaagto aadan haysan garab iyo gaanshaantoona ha ka baqin inaad mar kale bilowga ka bilowdo waa fursad aad ku dhisi karto wax ka wanaagsan markaan waqtigan eber kama bilaabaysid waxaad ka bilaabaysaa khibrad oo waxa aad leedahay khibradii aad ka dhaxashay fashilnimada ama guul darrada oo markaan wax u kala baxsan yihiin ayaa tahay ha ka cabsanin inaad weydid oo aad lumisid dad bal ka cabso in aad lumiso naftaada adigoo isku dayaya inaad raali geliso cid walba oo kugu hareeraysan ha ka cabsanin dhibaatooyinka aad wajahaysid waxay tilmaamayaan in aad ka guuraysid marxalad noloshaada ah una guuraysid marxalad kale inta badan waxaana cabsi gelisa waxaan cabsi ahayn aan anagu iskugu sheekaynayno aan wax ka jirin xaqiiqdana ka fog cabsidaada kama baxsan kartid mararka qaarkood waa inaad dhistaa geesinimadaada si aad u wajahdo oo aad uga gudubto caqabada noloshaada ama caqabadaha markaas ku haysta furaha guusha waa inaad diiradda saarto maskaxdaada qaybta waaciga ah oo ku faraysa inaad samayso waxyaalaha aad u baahan tahay inaad samayso aysan ahayn inaad ka fikirto waxaad ka cabsanaysid oo aan muhiimka ku lahayn geesigu ma ahan kan aanan cabsanin laakiin waa kan ka adkaada oo wajaha cabsidiisa sida ugu wanaagsan ee cabsida uga xoroobi kartid waa inaad wajahdo xaaladda aad ka cabsanayso ha ka baqin in aad khalad samayso ama inaad la kulanto caqabado waxay ku siinaysaa fursad aad ku fahanto inaad tahay qof caqli badan oo aad noqon karto qof wax soo saar leh waa markii aad wajahdo aadna cabsidaada wax ka baratid waxaan idinka tegayaa intaan video kale ku kulmayno anigoo ah Khadra Cali fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh